iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta u dabaaldegayaan sanad guuradii 61 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu maanta degmada Owdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose ku booqday waqtina kula qaatay geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka iyagoo cadawga ka difaacaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaare Rooble oo booqashadiisa Owdhigle ku heliyeen wasiirada gaashaandhigga caafimaadka iyo saraakiisha taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xuska aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 12 Abriil la qaatay ciidanka militariga ee ku sugan jiidda Owdhigle. ujeedka booqashada ra'iisul wasaaraha ee degmada Owdhigle ayaa ku saabsanay sidii uu bogaadin lahaa guulaha isdaba joogga ah iyo dhiiranaanta leh oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab iyo difaaca dalka oo ay u hurayaan dhiigooda. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad ka gaarteen cadawga ummadda Soomaaliyeed ee jid iyo jihadiidka ah xaqiiqdii waajib wadaninimo Soomaalinimo islaamnimo ayaad gudateen oo dalkiina ayaad difaacdeen ilaahayna garabkooda wuu ka baxay kuwa xaq u socon waxaan idin leeyahay guul hambalyada maanta oo ah 12 Abriil oo laga joogo 61 guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hambalyo idinka iyo dhammaan reerihiina qoyskiina eheladiina hambalyo ayaa idin leeyahay xaqiiqdii waxaan soo watay maanta wasiiradda caafimaadka sababtan u soo watayna wax kale ma aha aniga og baahiyadiina kala duwan oo ay ugu horeyso midda caafimaad ayaan rabay inay indhaheeda ku aragto una soo gurmato sida ugu dhaqsiyaha badan baahiyaha kale oo jiro oo ay kamid tahay dib u habeynta ama reformka iyo mushaaraadkana ciidanka ku cusub xoogga ayaan saari doonaa insha Allah markaan ku noqdo magaalada Muqdisho waxaad ogaataan in shacabka Soomaaliyeed uu xooggiina iyo awoodiina uu ku jiifo
la'aantiina uu cadowga uu qabsan lahaa shacabka Soomaaliyeed saadarteed waxa idin leeyahay hambalyo inta guusha keentay inta ku dhaawacantay Ilaahay ha caafiyo inta ku dhimatayna waa mujaahidiin Ilaahay jannatul firdaws Allah geeyo Nasr Bashiir Ali warbaahinta qaranka Awdhigle